Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni ciyaaraha waxaynu falanqeyn doonaa kulankii dhex maray Croatia iyo Portugal ee muranka badan dhaliyey haddii aad ku cusub tahay nagu soo biiri haddaad hore nool joogtay like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay Portugal ayaa u gudubtay wareegga 16 ee koobka adduunka kadib markii ay 2-1 kaga adkaatay Croatia ciyaar muran badan dhalisay Cristiano Ronaldo ayaa riyadiisa koobka adduunka sii nooleysatay isagoo dhaliyay gool rikoor ah halka Gonzalo Ramos uu kursiga keedka ka yimid kuna dhaliyay goolkii guusha waqtigii dheeriga ahaa Portugal waxay hadda wareegga xiga la ciyaari doontaa Spain Croatia ayaa hoggaanka qabatay daqiiqadii 53aad markii Ivan Perisic uu shabaqa soo taabtay Portugal waxay heshay rikooro daqiiqadii 66aad kadib markii VAR dib u eegis uu sameeyay waxaana Ronaldo uu si degan u dhaliyay goolka barbaraha daqiiqadii 68aad tani waxay ahayd goolkiisii ugu horeeyay ee wareegyada bugbaxa ee koobka adduunka daqiiqadii 94aad Rafael Leo ayaa kubad qurux badan soo qaaday waxaana madax ku dhaliyay Gonzalo Ramos si Portugal uga dhigto 2-gool ciyaarta Croatia waxay u muuqatay inay barbaraysay ciyaarta markii Josko Gvardiol uu dhaliyay gool daqiiqadii 104aad ee ciyaarta balse VAR ayaa goolka diiday kadib markii la ogaaday offside iyadoo la adeegsanayo farsamada Sneko si loo xaqiijiyo taabasho yar oo kubadda lagu sameeyay falcelinta tababaraha Croatia ayaa yiri garsoorku aad buu u liitay VAR waxay dishay dareenka ciyaarta tababaraha Portugal Roberto Martinez ayaa isna sheegay ma ahayn nasiib mana ahayn qalad go'aanka la gaaray wuxuu ahaa mid sax ah Portugal waxay si dhib badan ugu gudubtay wareegga 16 halka Croatia ay tartanka ka hartay sidoo kale waxaa la filayaa in tani ay noqoto koobkii adduunka ee ugu dambeeyay uu ciyaaro kabtanka Croatia Luka Modric Portugal waxay ciyaarta xigta la ciyaari doontaa kulanka xiisaha badan ee ay la leedahay Spain adiguna fikirkaaga ka dhiibo haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo aad mahadsan tahay